gabadhan aad sawirkeeda aragtaan hal sawir oo si kadis ah looga qaaday oo aan dan iyo muraad toona laga lahayn ayaa nolosheeda oo dhan bedelay saboolnimada ka saaray kuna daray kuwa ugu taajirsan caalamka ka soo saaray mugdiga iftiinkana geeyay oo dadka baray waxay ka mid tahay dadka ugu taajirsan maanta caalamka amaba ku shaqeeya mushaaraadka ugu faraha badan waa modelka maanta adduunka loogu hadalhaynta badan yahay haddaba gabadhan sheekadeeda maxay tahay intaan kula wadaagno waxaan rabaa marka hore adoo raali ah muuqaalka noo like garaysis oo meel dheer u gaaro sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirto inta haddaad sameysay waad mahadsan tahay soo dhawow waxaan ahay Haruun Maxamuud gabadhan magaceeda waxaa la yiraahdaa Anuug waxay ka soo jeedaa South Sudan waxay ahayd sabool faramaran oo cayr ah oo aan waxba haysan waxayna la mid ahayd ama familkeeda oo la mid ahaa inta ugu badan dadka saboolka ah ee reer South Sudan 2013 ayay waxay dhamaysay dugsiga sare markii ay dugsiga sare ka aflaxday waxa ay weysay lacag ay waxbarashada iskaga bixiso familkeeduna waaba ay farmaraayeen sidaan idin sheegay oo wax ay waxbarasho ku geeyaan iska daayay cunada ama quutul yoomka ay cunaan ayay mararka qaar way jireen Anuug dhowr sano ayay guriga iska fadhisay ilaa ay laga soo gaarayay sanadkii 2015 markaas oo ay baraarugtay ayna xal u aragtay inaysan sidaani u wacnayn oo ay tahay nolosheeda inay horumarin ku samayso sanadkii 2015 dhamaadkiisa ayay dhowr foom oo deeq waxbarasho ah oo dalka dibadiisa ah ay buuxsatay 2016 bilowgiisii waxa u soo baxday deeq waxbarasho oo ka timid dalka Ingiriiska magaalada Manchester jaamacad ku taalo Hawl leeyahay koorsooyinkeedii ayay xirxiratay familkeeda ayaa dhabarka ka dharbaaxay waxay tagtay magaalada Manchester ee cariga Ingiriiska waxbarashadii ayay bilowday waxa ay xooga saartay amaba ay jecleedba intii aysan jaamacadda ku biirin inay barato maadada la yiraahdo biochemistry ee caafimaadka la xiriirta si ay u noqoto dhakhtar isla markaana halka uga samayso dhaqaale ay dabcan nolosheeda ku maareyso familkeedana ay dib ugu celiso si ay saboolnimada ay uga saarto taa oo ay xal u arkaysay haddaba maxaa dhacay intaa kadib waxaa dhacay sanadkii 2017 sanadkii labaad ee ay Anuug dhiganaysay jaamacadaas in sawir qaado la yiraahdo Steve Paul uu soo galo madal ama xaflad ay ardada jaamacadu dhiganayeen oo ay gabadhan ku sugneed uuna uga qaado labadan sawir aad u jeedid waxa uu ka helay ama ajiib la noqotay gabadhan habka ay u samaysan tahay oo Ilaahay dabcan u diyaariyay waa madowga dhalaala waa kushitiga timaha jilicsan oo dabcan adduunka ku yar qaaradda Afrikana aad dabcan ugu sii yarba inkastoo ay dadka noocaana Soomaaliya ay ku badan yihiin labadeeda sawir ayuu wuxuu ku baahiyay Instagram-kiisa inta kadib waxa quruxdeedii la dhacay shirkadaha waaweyn ee ka shaqeeya fashionka iyo modelka waxaana la soo xiriiray shirkada Tirabella iyagoo markaa danaynaya inay dharka u xayisiido isla markaana ay siiso ama ay siiyaan lacag badan oo ay dabcan nolosheeda ay ku maareyso fursadii ay raadinaysay ayaa haddaba Anuug u soo gargaraacday albaabka soo inay ka faa'iideysato ma way ka faa'iideysatay maantayna gabadhii saboolka ahayd ee reer South Sudan ee waxay cunto iyo waxay cabto aanan haysan ee waxbarashadeeda dhowrka sano gaabka ugu jirta wax la'aanta waxay ka mid tahay dadka maantay ugu taajirsan caalamka waxayna ka mid tahay sidoo kale shakhsiyaadka ku shaqeeya mushaaraadka ugu faraha badan halkii saac waxay ku shaqeysaa $15,000 gabadhan hayaraysan saacadii waxay ku shaqeysaa $15,000 haddaba nuxurka sheekada muxuu yahay nuxurka sheekadeedan waxa uu yahay in Ilaahay uu saku moogayn si walba aad sabool u tahay si walba aad u tabar yar tahay si walba oo aadan u haysan fursad nololeed laga yaabo maalin maalmaha kamida in Ilaahay cid uu kugu soo dhiibo fursadii noloshaada bedeli lahayd laakiin loo baahan yahay inaad intaa wixii ka horeeya dulqaad badan muujisid sida gabadhan oo kale kuma santahay ilaa halkaan dadana la soo gaartay fadlan muuqaalka noo like gare si asxaab badan u gaaro nuguna soo bixi haddii aad nagu cusub tahay ana Haruun Maxamuud nabadgelyo